والبعلة والدين معلمين لكن ما أنت والدين تويا لو بقول له معلمين تسوي أنا معلمين ضدك كيجوا وجعنا والله لكن وعن جعل عن غلط يعرف إلى عن بالصحة أما عن ذاك لقي بالصدوع اللي تلو ده لكن والد ما أنت والدين تويا صهروا وهذا أنا واحد سوى قرآن هو دين كأمن سنين يسأل ما إلا برأيت هاي فرق العود حية ما ربنا ما خير هذا واحد شيء والد مربي أو تربية يوالد المها سكت له إلى هاي مرة لا قرب يقول أساس قرآن لكن لا كفاك عام قبلتك وهي مرد له هي مرة وعم راس راح بريو لباس كذا هو يلا واحد لا هاي شن الموت بين أفريقيا جاي قرآن كان صواب بري UK بخصوص الشيء قرآن كيه المانع اسكولين ولا قبسان لأيه شنتين من أفريقيا اللي جاي اسكولين ولا قبسان وين قرآن كيه لو ترجع لا أدت شيء صابق تمام المانع waxaa jirta dadka muxaadara ka sameeyo leeyahay hooyo iyo aabe ilmaha wadin hada wadina soo celin UK ilmaha dariiqada taagan oo la xashish balay gadaan boqolkiiba 90 meel soo cusubaya ilmaha GCSE ku dhaca oo niyad ku dhaco oo meel sida wareegaya ilmaha soo celiyo ilmaha quraanna fara ku haynin akhlaaqiyadka tara khadmay ilmaha loo soo cusubaya ديبو بارع معلمين توصل بقول كيف هل يا الله وين بالبلاد ما غيابه إلهنا سبحانه وتعالى عاويه وين الأرض رحلة توشك هنجي كان كلجي توشك خلاص الأرض بقول معلم قبو ما حيالها دعمك ثابت محاكي يا مرك أوكي غلط أول ما قلنا واحد هاي الماء عندك حيننا واحد لقينا يا القاهرة واحد لقينا يا صوماليا واحد لقينا يا إماراتك واحد لقينا يا كينيا ilmihii qol baa lagu soo xiraya waxa leeyahay macallin baa quraanka baraya halkaas oo sanad iyo laba quraan cadaadis oo ciqaabta adduunka ah loo siinaya wali waxa la Kenya waa meesha loo geeyay ilmaha lagu soo ciqaabo mara hadda kan muxaadarada shamsaad ku yaala Nairobi hidaayana waxa sheegay waxaan keenay halkaan ilmaha lagu ciqaaba Nairobi habar baa ilmaha ku dhaarata Yurub iyo Ameerika wallahi Nairobi waxu geenaya waxa og yihiin ilmaha qofka looga xiro lagu garaaco okay laba sano la soo karkariya cunugii laba sano luqadu yaqaanadii Hollandeys ahayd Ingiriis ahayd Faransiis hilmaamay baa lagu soo ceshay meesha laga waday cunugii laga dheer aniga laakiin gubanayo quraan lagu soo dhibay quraankana waa ogtiin quraan waa faraq wahayn anna waa xifdisina laakiin marka sameeyaan ka sheegay quraanku shaa ardu dusha kaga baxay maanta ma yaqaan wallahi kii shalay darad ma qataya kii shalay dusha kaga baxay maanta ma hayo farsamo iyo faraq wahayn iyo jeclaysiin iyo tartiib akhris iyo ku cilmi quraan lagu bartaa ma ahan saano yeelno okay cunuga laba sano soo karkariyay waa la soo ceshay landa baa la keenay iskuul baa la geeyay iskuulada UK ana Yurub kala ma garanayo age sanad bay ku socdaan hadaan cunug 15 jir karto 15 jir u daraya 5 jir loo geenaya la dhimay muxuu yaqaan imtixaan la qaada maya cunugii dhowr sano maqnaa wuxuu yaqaanay hilmaamay GCSE maanta ku jira kuwa GCSE u daraya GCSE bu G iyo H iyo balay helaya aan la helinin luqadda ma fahmay hilmaayay inuu luqadda joogeen markay meel kale la geeyo 6 bilood 5 bilood haaf bay ka tagayaan markay sanad joogaan ma yaqaanaanba isa baras garaynin cunugii 10 la laadinaya baa GCSE la galaa uu ku dhacaa turku galaya ama waxa la geenayaa waxyaalaha waxa la siinayaa aan munaasabo ahayn waa loo sheegaya waxa leeyahay adiga GCSE waa fiicanta laakiin ma baasinin adoo waxa noqon doonta dadka kilin ka shaqeeya iyo kuwa ku qoslayaan adoo niyadjabka duwa ku dhacaya inuu duurka galo 190 bay dhawaanaysa qaarna oday habarta la rafto tuushin kala geey mid kala geey quraanka aan lama hayo ogaadaya quraanka fakay quraanka maanta uu dambeysay because laba mare cunugan waxa hadda laga fakaraya waxay tahay si isku ugu haynaa maxay qaldeen marka waxay qaldeen waxay ahayd horta koow adaa ilma haysatid meeshay ku joogaan hadii biilka ku xiran yahay oo Yurub ama Ameerika joogtid oo aadan meesha awoodid ka shaqaysan karin oo ku hayn karin halka hayna meesha ku hay ilaahayna u bari macallin u raaso la rafo waxbarashada oo baytaala quraanka waa yaala waxbarashada waa taala waa adada ka maarmi karin meeshan adaa ka maarmi karto cunugan ka hana soo celin
وغلط كلامات كسد حد أضعت أنا سوء علسو عنق عن كحية لكن مال سيستم كبر تكشف غير يجي تصار عن كي يجي معك هذا كي يجي يصير قرآن بياله عربنا وياله إنجليزنا وياله ككفي عن وليبا قلنا قرآن قلته قلنا اسكول عادي هكو ما يا الله أصلا قرآن بقول كذا الله أصلا قرآن كله ما ينيا والقرآن كمان تعرف مساء ضم بيسا اسكول كنا كذا عيل عنقنا كنت علاش كوهي مسيد ودون كاس لقى سنة يا واحد قرآن كها هاتو وحبرشان مادي كها هاتو ذكر واحد خبرنا واحد تين في يوجا الدنيا آخرها إنه حسيبرتو لكن أنا بريم أنا فيرنا عنقان حقي صغير الله أصلا قرآن كله مسيد يا والحق هذا ما يحقي بقى قطوان عنقان مستقبل صدق عيار يسا اسكول بورهبا عيار بورهبا قرآن بورهبا ضبيعة وناسين أفكيسها هو يلا مرور هبا واحد بدل ما اسكول حيران ماشان معلن بهلا أنت قال وصل السوق قراء الدين تنا خضري اسكول كان نفسي حالكم حوية سهرة بقول شيء عنده ماشي تقول شيء كوهاي وضعها سوء لين هذا سوء لين السنة ماشى أوضحها هاتمال وخشقيو لغض المهن وحكوا براد دونه الدين هاي جالسيو وحنا خصوصا برتي مستقبلك السنة كوحي عليه عنده يوكي كوضو كي يجي هتا قلنا خصوصا حلم قال إن سكول أقرأ قال له قرآن كو أقرأ قرآن أنا كوع قابل كو هندي جي واسام سكول نجي قرآن نجي باكستان جي واسام حاجة وخش علينا ساعة صوماليا دا جيسو أما مصر جيسو المال هسوعين حديك كلا تقول فرض وحي هاي هول ده يوكه سنة بربالة رب بلاد صدق بلاد صوم غناطو كان هذا جي كان هذا جي marka geynayso meel hol ay u geynaysana meel bacday oo TV lahayn internet laan ha geynayso sabriik haga diidin wallahi bilaa afrikaan geynaya qolbada ku soo xiraya wallahi waa kibirteen adaaba isku diraysid bariya ku dalaya wallahi bariya ku raacay wallahi marka anagu asaaska ma ka halayna hadowtina sheekho maxaan yeelaa saan dhacday hadda wax lagu qaba kara iskayr ilaahay bari bal wadaadku war haftaan raadi kula dhooba ha quraan dusha laga xifdinaya ka daa ilmahaaga مكان ما يفيدين كرو خرجت مركوية يوروبي أمريكان تشوفه نو وعن كده الأشياء إنه برتوس قرآن كتاب هو آخريه هرت في كاس سهل برا ترتيبه آخريه لقب صدق استبى كيرن دون جارهان مكان المنطقة زي أفريقيا قرآن كإصابة ميان حوا خصوصا بتودين هاي هالمامين هذا حفظ كله هذا كل عريني maxaa sameynaysaa inay quraan kitaab uga baxaan si sahlan haloo sameeyo qofka soo quraan yaqaan warsada quraanka waxa lagu bartaa akhrin fara badan akhri waliba aan ciqaab la soconay dhibaato meel badan waa ka sheegay hooyo Soomaaliyeed baa cunugeeda yar wax tiraahdaa 3 saacadood quraanka akhriyo maalin baa after school ka soo laabta 3 saacadood quraanka akhrinaysa soo jiro bu ku durhurdooda suulka danaada oo ku durhurdooda suulku aada أسوء إني المثال كذا لا لمن إدمن تنقع هي حاجة وهي هاي صعيد كشرنا البارة ما يقعنا عليك وعفوا إيوه طبعا ما نقولي إيدو القرآن ما رسال وعيت ما عنده ما خير لكن أصبح مرثي شيء واشقة يعني وعنقولي عنو يلا سديس ساعة سكول أله كانت تمرير عيار باهن أنت عنور ربا نصينا ربا 6 ساعة قرآن دول فريسو حياة كان هذيك النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ ساعات كل يوم كده منفر بعد تضيق العيرسة منفر وحلا قف وضيق البرية waxaan ku yidhi dadka diinta ku diraysaay cunuga marda waxaa ku samayn maxaan yeelaa markuu firaaqaya maana akhri dheh hadduu macallin leeyahana macallinkiisa ha u qaabeeyo ha u xadido intuu soo akhrinayo siduu samaynayo laakiin inta bur soo qaada wali akhri qur-aanka waxa weeye waxaad gaarsiinaya beri ku dhaha may ma rabo maalina hooya waxaa wiilkeeda wariya ama aniga doona saxiibka doono waxaan ku yidhi saxa dhihin saxiibku dooranaya heerkaa gaarsiinin وريا كلا دورة وريا واحد يقول ما في عنا صاحب كانوا وجعليه عندنا وجعليه حق هاي يوم شاكينا لكن وريا كلا دورة لبضان تيم ما كوي دمي بقى لي ساعة نص صدر ساعة مركا هجارسين هارو بريكو ده قرآن كذا المهرب تعقبته كل عذابته كل بتي مركا معهم قبل جمانية المها يهودين هدا ودانها سوعي هدا المها سوعي نيسو ما السيستم كشق خبر الدورة كشق عينه يجي ilmaha hadda tabar u haynin aad ku rabtid marka taa wax la ordo bari soo celi doonto meesha kullu geey doonto inta kala orod Kenya gee haddana la orod Masar gee haddana la orod Soomaaliya gee haddana la orod Hindi wal waxaas wax ku anfacaya ma ilmaha mustaqbalkoodii maskaxdooda wax ku ciyaaraysa toban luqad tiba wax ka yaqaan intaas wax ka yaqaan marka tala ma ahane ilmaha hadda wado ku fikir inta wadin ninka hor maxaa sameyn kartaa da'dooda ku xisaabtan age ay joogan
ilmo waxtii aan la wadi karinin way taada ka wadid waxbarashada halkaas joogto ay kala godo ay mar dameeto si sama ka dhacayaanba dadka wax yaqaan la tasho cunugan moodi kara xagee geeya wuxuu ku leeyahay cunugan way dhawa wax raba inta uu meel ku soo xiro haddaan meel ku soo xiro meel ku xirnaanaya cunugan mootahay waa soo korto u koraya caqli aan leeyahay waa fikraya ciqaabta xusuusanaya xumaanta loo geystay meel ay ku qoran tahay waxa ma hilmaami doono marka ka fakar inta fale ka fiirso hooyada ilmaha keentay oo dhibkan ku dhacana waxaan leenahay ilaahay subxana wataala kuu boogadhayo laakiin labada talo kuu furan waxay tahay inaad heshid macalimiin ku caawisa tuushina la raadisid qur-aankana qaladka hore aa gashay aada gelin oo aadan qur-aankana meel uga soo xirin qur-aanka noloshu ka mid yahay inuu nolosha la socda aad barto qofka in marba akriyo ku dukado tartiib u barto wax la baran kara uu yahay ee aan laga dhiginin wax dadka lagu ciqaabo meelaha laga sheegayay ma qur-aan isku dil maa la bartaa waa wax agteennada yaalaha qur-aan aragtee dil aragtee macallin aragtee xanaaq maqashe haddaa macallin aragtee waa xanaaqsan yahay haddaa qur-aan aragtee dil baa la socda waxaas wax jira ma diinta iyo ummadda lagu dirin oo huwa ilmaha afrikan la geeyey oo 2 sano qur-aan kusoo dhameeyey waa lasoo ciqaabay ciqaabta adduunkaa lasoo ciqaabay waxna ma diidi karo shingiyahay jareen saan shaa u sheegaba marka shingiyaha jarin ilmahana ha ku dirin waxaan ku dhihi lahaa ilaahi subxana watacaala dhammaanteen hana sugo ilahi ilmaha noo xifdi subxaana watacaala qof kastaana ku dadaalo suu ilmihiisa meel fiican oo ay beri ka maalin ummadda ula qabsan karaan u geysan lahaa laakiin